Bismillaahi Raxmaani Raxiim Duhur wanaagsan halkan waa janalka Tosno Media odaga barateen wararkii Soomaaliya iyo caalamka qodobada duhurnimo ee ugu waaweyn waxaa ka mid ah wafdi ka socda Soomaaliya oo ku sii jeeda ICJ iyo wararkii ugu dambeeyay kiiska badda Soomaaliya farmaajo oo ila dhaqaale oo muhiim ah kala wareegay Axmed Madoobe Faysal Cali Waraabe oo weerar afka ah ku qaaday Muuse Biixi qodobada oo faahfaahsan ayaa warkeena ku maqli doontaan ku soo dhawaada faahfaahinta warka doona habka virtualka garyaqaanadii iyo sharci yaqaanadii iyo khubaradii kale waxaa dhageysiga dacwadu ka koobnaan doonaa laba hab maadaama cudurkan COVID-19 uu xadidayo dad kooban inay maxkamadda joogi karaan dadka intiisa kalena ay kaga qayb qaadan karaan online idinka qodhiinu maxkamaddu way furan tahay waxaan idinka codsanayaa idinna soo jeedinayaa maadaama halgan umadeed iyo halgan shacab ay tahay dacwad taariikhiya ay tahay halkaa ka dhulkeenna iyo baddeenna aynaan ka tanaasulahaynin rajo weynna aan qabno in doorka saxaafaddii haddaad tihiin muwaadinnimo iyo soomaalinimo idinkaga aadan aad ka qaadataan aad la socotaan dacwaddu intay socoto 15-ka 16-ka 17 waa la nasanayaa 18 iyo 19 shantaa cishaba in aydun online kaga soo qayb gashaan si live uga soo qayb gashaan oo u daawataan oo u dhageysataan oo u adorestaan oo u faaqidaan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta wafdi culus u dirtay dalka Netherland gaar ahaan magaalada Hague si ay u gudbiyaan dacwadeedka badda ee haatan horyaala maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ wafdigan ayaa waxaa horkacaya sihayaha xilka ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed iyadoo ay wehelin doonaan wasiiro xil ilaaliyaha guud ee qaranka iyo diblomaasiyiin ka qayb galaya dacwadda badda ee wadamada Soomaaliya iyo Kenya Mahdi Maxamed Guuleed iyo xubnaha kale ee la socda ayaa ICJ gaarsiin doona dukumiintiyo muujinaya milkiyadda biyaha ay haatan isku hayaan labada dal sidoo kale waxaa qorshuhu yahay in qareenada u dooda labada dhinac ay dooda dacwadda kaga qayb galaan aaladda fogaan aragga ah video conference sababo la xiriira cudurka safmareenka ee coronavirus oo wadamo badan ku laba kacleeyay dhaqdhaqaaqa socda ee dacwadda badda ayaa ku soo aadaya iyadoo ay Kenya marar badan isku dayday inay dib u dhigto kiiskan balse ay ku gacan saartay ICJ si kastaba dhageysiga dacwadan ayaa toos loo gudagali doonaa 15 bishan March oo ku beegan Isniinta soo socota iyadoo dowladda Soomaaliya iyo Kenya ay haystaan qareeno ajaanib ah iyo sidoo kale khubaro sare oo u kala doodayo labada dhinac wixii ka soo baxa oo warar ah oo faahfaahin oo ku saabsan arinta dacwadan waxaad kala socon doontaan insha Allah janalkayga Tosno Media magaalooyinka Beled Xaawo iyo Doolow oo ku yaala xuduudda Soomaaliya ay la wadaagto dalalka Kenya iyo Itoobiya ayaa ahaa magaalooyin ay dhaqaale xoog la ka soo gali jireen maamulka Jubbaland kuwaasi oo laga qabsaday sanad ka hor kumanaan lacag ayaa maalin walba laga qabtaa labadaasi magaalo oo ay midiiba maraan ama ay soo galaan gaadiid ku dhow 60 gaari oo xamuul iyo adeegyo kala wada waana sababta ay muhiim u yihiin labadan magaalo gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya adeegyada gala ee ganacsiga waaweyn ah waxaa laga soo qaadaa suuqa Bakaaraha ee Soomaaliya loogama keeno Mombasa ama meelo kale oo ay Kenya maamusho maalintii ugu yaraan 30 gaari ayaa ka gudubta xadka Soomaaliya oo qaarkood laga qaado $500 waa magaalo muhiim ah Doolow ayaa la mid ah ayuu yiri xildhibaan ka mid ah baarlamaanka maamulka Jubbaland oo gada laga soo doortay kaasi oo la hadlay dadweynaha Doolow iyo Beled Xaawo lacagta uu Axmed ka heli jiray waxay ku dhow yihiin midda uu ka helo dekedda iyo airportka Kismaayo waa magaalooyin muhiim ah Axmed iyo wasiir Janan ayuu hadalkiisii raaciyay xildhibaanka oo aan qarinay magaciisa xildhibaankan ka tirsan baarlamaanka Jubbaland isla markaana baarlamaanka ka soo gala Beled Xaawo ayaa sheegay in hadda lacagta kumanaanka kun ee laga helo magaalooyinkaasi lagu shubo banki ay leedahay dowladda Soomaaliya isla markaana ay maamusho wasaaradda maaliyadda Soomaaliya
Wasiirka Amniga Maamulka Jubbaland Cabdisii Janan ayaa dhowr jeer weeraray magaalada Beled Xaawo iyadoo ay dagaaladaasi ku dhinteen 10 qof kumana guuleysan inuu dib ugula wareego ciidanka dowladda. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID Faysal Cali Waraabe ayaa weerar afka ah ku qaaday madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo sheegay inuu qorshe la'aan siyaasadeed ku hagayo xukuumaddiisa. Faysal Cali ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay hogaaminta Biixi oo uu sheegay inay marayso meeshii u liidatay isla markaana dib u dhigtay Somaliland oo horumar wanaagsan u bidhaamiyay sida uu sheegay. Faysal Cali Waraabe waxa uu sheegay in Somaliland ay ka jirto qorshe la'aan siyaasadeed oo dhinaca xukuumadda ah wuxuuna aaminsan yahay inay taasi dib u dhac u keentay horumarka ay xukuumaddu samayn lahayd. 60kii waxa ina qarribay waxa ay ahayd hoggaan xumo, maantana waxa halkaa ina dhigay waa hoggaan xumo, dadka waxa isdhaafiyay waa hoggaanka. Ilaahay waxaan ka baryaa inuu hoggaan wanaagsan ina siiyo ayuu yiri Faysal Cali Waraabe. Sidoo kale waxa uu dusha u saaray Muuse Biixi dhaqaale xumada ka taagan Somaliland iyo sicir bararka aan xal laga gaarin sanadihii u dambeeyay, iyadoo ku eedeeyay inuu waqtiga xukunkiisa ku lumiyay shaqsi xumeyn iyo xifaaltan siyaasadeed oo aan loo baahnayn sida uu hadalka u dhigay. Wasaaradeena ma jiro wasiir qura oo aad is leedahay shaqada wuu ku habboon yahay, qof qura oo wasiir ah oo hore meel shacab ka soo shaqeeyay ma jiro, guddigood dad aan cilmi lahayn ayaa loo dhiibay, taa waxaa ka daran ma lihin siyaasad qaran oo uu wasiirku ku shaqeeyo ayuu hadalkiisii ku soo afmariyay Gudoomiye Faysal Cali Waraabe. Nidaamka aynu qaadanay, madaxweynuhu wuxuu la yimaaday qorshe siyaasadeed, siyaasadda arrimaha dibadda, midda dhaqaalaha, tan bulshada, tan difaaca, kuwa midna ma lihin, sidaa baynu u meeraysanayna waqtigii ayaynu isaga luminay hebel xume iyo hebel ku jiiqsi ayuu yiri mar kale Faysal Cali Waraabe. Hadalkan ayaa imaanaya iyadoo ay xiisad xooggan ka taagan tahay gudaha Somaliland isla markaana diyaar garow loogu jiro doorashada golayaasha wakiilada iyo guurtida oo ay ka dhalatay xiisad siyaasadeed. Gabi ahaan inta ayaynu kusoo gabagabeynaynaa warkeena duhurnimo. Haddii aad ku cusub tahay channelkeena soo dhawow. Wassalaamu calaykum waraxmatullah.